السلام عليكم. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno biyaha Zamzamka ah. Dhamaanteen waxaan jeclaan lahay qaar ka mid ehelka, asxaabta, qaraabada ama cid kasto oo aan naqaano oo markay ka soo laabanayso xajka inay hore noo soo qaadaan xogaa yar oo biyo Zamzam ah. Haddaba sidee ayuu ku yimid biyaha Zamzamka ah ayaan rabnaa inaan ogaano. Markii ugu horeysay uu Ilaahay ka soo saaray dhulka hoostiisa weliba qisadii Nabi Ismaaciil calayhi salaam markii Nabi Ibraahim lagu amray inuu ka xeeyo xaaskiisii Nabi Ismaaciil isla markaana uu kaga yimaado magaalada Makka. Wax biyo ah iyo cunto ah ma aysan oolin, xitaa dad ma aysan joogin halkaa. Ilaahay ayaa dhulka hoostiisa ugu soo saaray biyaha Zamzamka ah. Ceelka ay ka soo baxaan biyaha Zamzamka ah waxa ay Kacbada u jiraan ilaa 20 mitir, waxa ayna aad isugu dhow yihiin Xajarul Awsadka. Ceelka dhererkiisu gaaraya ilaa 3 mitir, waana ceelka ugu nadiifsan dhammaan wax ceelal ah ee dunida guudkeeda saaran. Waxaa rabaani ah in biyaha Zamzamka ah aysan wax ayaan ah ku dhalan, ma wasakhoobaan, dhadhankooda ma isbedelaan, weligoodna ma dhamaanayaan. Markay ugu yar tahay ceelkaasi halkii sakan waxa uu soo saaraa ku dhawaad 12,000 oo litir, marka ugu badan tahayna 18,000. Ogowse waa halkii sakan oo ugu badnaan halkii sakan uu soo saaray 18,000 oo litir. Waxaa biyaha lagu qaadaa tubooyin u gaar ah oo geysa Kacbada looguna talagalay dadka inay halkaasi ka isticmaalaan. Meesha ugu horeysa ee la geeyo waa masjidka Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Muslimiinta oo dhan ayaana loo qeybiyaa, waxaana lagu shubaa caagado. Maanta oo ay ku beegan tahay 9 Carafo oo xujay badani oo muslimiin ah ku sugan yihiin Carafo, ma jeceshahay in sanadkan aad hesho biyaha Zamzamka ah? Ilaahay ha ka aqbalo dhammaan muslimiinta maanta u suura gashay inay taagnaadaan buurta Carafo gutaana waajibaadka xajka. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.